يجي لا بيريكم من قارمري نبيكم كذي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا دمان أصحاب تقرح بدل ميل بدون ذيك الجوكتان السكستون نود داون إنسان ولا بدي نويل أو طلع يرى ذا أو ده يرى أو يا ساسوي مانو على أي حال وأنا سعيد بيج فان وحاول واشدنا هاي يا بليز يوتيوب جنال كذا كل عصبته وحكى عد سنة أنا سبسكرايب يسارته سأقوم جارو تضوب بقرأ كنا سبسكرايب أدي ماي براذر وريسي محلنا تزكي وأيدي سلامة دهور وناكسن قلب وناكسن ما شاء الله وحدة أنت هنا وناكسن ما فهمت أدوين هذا سيسو أنا حفلة بندق بوجي واي هي لو ذا بيلوين كتبوا حيلنا أد جنيه سب كورين هاد في السنة وايد يا بندق جيرك نسنا يا هدرتان حفلة دي أسعنا حفلة ما أنتوا لسكوجود إمادي أنا كان للسوق هذا واحد اللي ويا دليرت أول قدام بيو سوق الواكاس هذا أنا كان للسوق يا سو مركز جايز هالكاس آدين هالكاس أنا بلانه أدي هذا ما سنتين هذا اللي ماذا يا واكو أنا قدومي ورثي ما أنت مركو ورثي كاميرا بقول ورثي معلدا هذا كركورينا معنا هذا بلاور بتاع حفلة يا صلاة تكونينا إن شاء الله ما شاء الله هذا وحاي ما أسد حاجي أسد in the building أي ما شاء الله صلاة أسكت بدو سلام سعيد غالي أرميننا وجيدا باور وذا مدح واكو أنا ما شاء الله حلوان هند ما شاء الله حلوانك واكنا أنا حلوانك دبلوماتي واكنا نجيك كل قدوميا واكنا عبد الكا ما أنت والله وذا إمام هاي لجك أرمينا ما والله سعيدك أرمينا لجك وين ما والله هذا صوتها تلي هذا صوتها لوسين واكنا أنا ما هذا صوتها فهمت واكنا لوسي واكنا صوص فيش واكنا هاي حضرت أرمينا سيجلو واكنا لكن لكن حتى أنا لفديك سولامني لفديك أنا دقيق وينه marka haduu deeqa laakiin inta ma ah meesha adi soo bax waa kana meesha adi inta fiiri waatana lifdiga anaga lifdiga raacina ma marka adiga la jiraa tahay waa laga furaxta lifdiga aadi wallahi waan dalay ma da armeena dadka waa maanta marka waxa waa soo dhow armeena meesha buuga maanta يعني dadka loogu tala galay ya birna qaduuciga kacabsa buug ya okay ka ma isbaarna dadka buuga dadka maanta buuga dhan ma aragto loogu tala galay meesha waa wada imaadeen adiga amir ana ka tarbax واي كوسان بران لابي رجعت اسيان جيم قصص لا قاعد يعلمنا برا خلاص فكر قرب شاركه غيره ما انت anyway اصحاب والله كانت مسكنه هذيك هادي انا غير مقران marka gays hadda meesha sii gelina cabsi waaye marka gudaha galno ma let's go santai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
Master Shuaib Eidbag, wiilka Soomaaliyeed ee ugu horeeya oo qor buug ku saabsan sirta Britiska. Hadda waxaan halkan ugu yeerayaa dadka qabanqaabiyey munaasabadan qiimaha badan waxaana loo daahfuri doonaa nabadoonka qabanqaabiyey the founder of ESK Maxamed Isaaq Xasuusi. السلام عليكم. دمتي مواد السلامي مكالة. سلام كتير والكلمة اللي هي مفيدة. يوم تهمتنا قليلة. أصوب ماندي أمته فنديكا بوجا سكة سبيسكا. أوقري ولكن داليا مستر شعيب. وحدي قاعد سير هالمرصعب سينو. waxaan halkan uga mahadcelinayaa marti sharaf kale ee kala duwan u horeeyaan marti sharafka ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta howlka marti inoogu ah Master Maxamed Cumar iyo Maxamed Cabdi. waxaan halkan marra uga mahadcelinayaa gudoomiyaha jaariyadda qaxootiga Axmed Jeelaani iyo gudoomiyaha ardayda Malaysia Ahmed Speedy dhammaantiin waxaan idin leeyahay mahadsanidin halkan waxaa ku sameeyaa youtuberska ee u horeyna marwan Somali youtuber Asxaajiyo waxaan halkan uga sii mahadcelinayaa walaalkeen martida inoo ah Mr. Erwin oo part of DST ka tirsan isaga waxaa leeyahay thanks for your time. martida qiimaha leh ee kala duwan ee maqaamka iyo mansabka qofka dhammaantood idinkana waa qiimaha ayaa wakiila qaaliga waxaan kale insha Allah martida oo cawada diyaar inagu ah fanaanka da'yar Master Cumar Bashaan Sharafti walaakale madaxda ugu horeysa dowladda Soomaaliya gudoomiyaha dowladda Soomaaliyeed gudoomiyaha dowladda qaxootiyeed iyo dhammaan youtuberska social media ku jira هذا سلامتي لبنتي مركز سؤال دوكا كدوكا دوكا تعاون مركز سؤال كرسي على كرسي لبنتي هذا سلامتي لكن عيبها حاجة هذا أسود بوك فرق قبل تدرس خبركي اوكي استمع anyways يعني waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tusaanista buuga uu soo saaray walaalkeen Shuaib Eidbag marka buugan aan iibsado after kadib aragahayna 10 back yeah bas hada waxa ay bas hadda si buugan horta waxaan idin aan cunto ugu horeeyo haduu ku jiro qayb ka hadlayso yani lugaha farq bas yani ka raafada noo qaadan hadii lugaha uu ku jiro buugan wax waa banaanka waa hadii Shuaib oo lugaha ka waa bidda خلاص waa intaas سكتها إن شاء الله waxaan dhalinyar meesha joogta aan tidin bilaa dhamaantiin insha Allah walaalkeen guudi waqti geliya hadal badan ku baxay soo waxaan rajayna insha Allah garabtaagiisa inaad baarkaa kale la hadda ka taaban doontaan insha Allah bilaadiina ku faa'iideysta buugan kadib noqon ka faa'iideysta لجك واكنا ما شاء الله Master Shuaib Eidbag sharing his experience. اوكي يقبطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصير شرف له أدب ما سنتين كنا هانتي مثل اللي كانوا خلقيين ما نيسو وأنا مركي وجوه رئيسي بوك عن صوبان ديكو وأنا مركي وجوه رئيسي ستيج أنيجا عن حاجة حبسنا عن سهول استيعاب ومركي وجوه رئيسي ماليزيا إن شاء الله يميل له صور من الغطاء qalbigayna meel weyn ayaad ku leeyihiin meel badan inay ka tahayna waa idin xasuusnaan doonaan laba waxa ugu horeeya wata ugu badan soo diyaarsada station book ka saabsan laakiin wax walba waxba ka horeeyo Soomaalida waxay tiraahdaa aniga soo ka koraysa loo cunaa marka hore waa inay idin hadaliyaan dhammaantiin waa mahadsantihiin meesha waa arkaya hawlihiiba ku badan loo markaan joognay qurbaha waxa ugu badan wax dhigtaa ama wax bartaa waxaa waaye gabdhaha waa jaamacadaha ka baxo ama digrii qaata gabdhaha ugu badan
intaa waxaa arkayaa in gabdho badan maasha allah yimaadeen taas waxay ka dhigan tahay in gabdhaha laftoodu jirkooda dhisanayaan fitnesska qaybi ka yihiin waa very important maanta waxaa malayna buugga markaad qaadataan in wixii ka dambeeyo canjeero iyo sanduus xafadda ka dhafi kartiin marka waxaan gudgeli doonaa insha allah stationkaan diyaarsaday waad ku mahadsantihiin mar labaad wax yaroo buuga ku saabsanaa rabaa inaan idila wadaago waqtigu qaatay iyo goortu igu dhashay أنا نقطة ها ميكان واجد تنبيه واجد يسوي كحال مركا أنا نقطة مركا وقف أحسن هاي هذا تفريستان مركا ودن كي لغاية بوصل لابتو عشان حوا سيال سنة كسوق أي شيء سوى كان وقف أحسن ولا كي شو عيب أو غيره الميديا وايد ضد غير أو حوا إنستغرام مثلا يعني هذا تيك توك يحكي على صوب إيه مركا إنت في حديث هاي أولاد كي عاركو نقطة buugga Soomaali waxay tahay hadda adduunka miis raas isku haystaan marka in la isku qoro qofka markuu miinad meel gaaro waa in loo qoraa qofkan dunya marka la waa in loo qoraa marka YouTube kulay in Soomaali YouTube samaysato waxaan ugu horeeyay tusaaleheena ana shakhsi oo ugu mahadnaqayo ninkan la baray waa مشاركة الجمهور إنه وصل لحاجة كيف وبعد فكرنا نحن الناس نقبل الرجال ونقضي نقبل ونقضي مركوا إلى هم يعني عصير بين ما هو الرجال ما كلم كان ذنبه حواي وما ما كلم أفضل يدير أو حاجة كده صوت حيانا هو خفكه ريه وكش يعني مركوا حلال هاي وقف كان شرو كابو ريه مركوا كل يوم سؤال دي وحنا بقسمه مركا ما لنا دليل ما الأسبوع ما لنا وحنا هاي الشيء هذا ما له كعويني أما كحنا هاي رمي إنه حواينا لأن كنا برينا المقال يوتيوب العربي كسبان قبل معنا فريق النص مي أصلا وحنا هاي يوتيوب كلا سمي كوه ري أو ميل جاري كوه ري كوف جاري يوتيوب مركا وإلا بها أصل وما صدق مركا ولكن إلهنا حاكمات بحصيو كل صومالي وودو حسي إن شاء الله إلهي بعد كل معلم كمية كل إلهي قف كسمر يعني مجد الموت معلم وأسد وكعة مركز ودنا دلالة يعني مش هاي أدي هوجا جزاء لقى قال ناد ما هو ولا حياة يا مركز كل ده هنا حاجة عارفين يقول عن دلالة بجيران مركز حنقول دلالة حتى وارد دوتا ماشي عارف كده مركز وحاول أسد عمود إنه صومالي أخو ما يخلص مركز تقول أقول جنا ولكن شعب ما حلا شعب ولا لأن بوليسو كل أنا تيجي مكان مع شعب بوك صوب اللي قاعد حنجر استثناء أو بوك عن سوبر مركز سوبر حبيبي وعاشي فريحة وحيدنا ما تذكر زرتي هنا وفرح سامع على سوبر ولا مسيتي تلفون kaasi wuxuu ahaa xanad cumar oo xubinka dowladda federaalka Soomaaliya oo ku muudsantahay isbiishkaaga waxaa nooga xigi doona the one and only the first Somalian YouTuber the Malaysian goat Asad Hajiya
هذا انت لو كان Oh my God, the time is now. Aad iyo aad salaama oo faraxsanayna kasoo qayb galo bandhigan buugga oo faa'iido badan leh. Shacab waa maasantahay sida aad noogu faa'iideynaysid. Waxaan noqday qofka ugu horeeya ee buuggan Malaysia ka helo sidoo kalena ka faa'iiday oo akhristay oo dhammaystay welibana waxa ugu weyn oo aan ka faa'iiday oo aan jadwalkayga aan yani ku dhisi karaa waxay ahayd yani time hurdada Malaysia xaalkeed waa taqaanaa waa la dhafraa soo marka dhankaas aad ugu faa'iiday oo maasan tahay shacab sida labada dhinacba aan bulshada ugu soo bandhigaysid almuhim sidoo kale anigan faa'iido ii noqon doonaa qaabka birta loo qaado yani buuggan intuu soo bixin ka horna walaalkii waa kala tashan jiray sida birta loo qaado maadaama aqooniga leeyahay ala kulli xaal waan faraxsanahay insha Allah waxaan noqon doonaa yani qofka labaad ee buugga halkaan ka gato shacab waxaa ku weydiin lahaa qof muqdisho jooga buuggaasi soo dirsaday oo welibana kooko aan birdaba u dhiibi doona soo marka ogolaashahaas ilaa ay bandhiga muqdisho ma sugina mise hadda u gada karaa qofkaas muqdisho yaala soo hadda inta gada karaa ma bakaarahu yara okay insha Allah qofkaas oo gada doona inta kooko ay dhiibi doona waan salaam insha Allah thank you guys وكم مساعدة بالتاجة وحنو في دولة منير آقا يوتيوبر لجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي دمايتي قف المنكر مكانكم كجوا ماشان سلامة. مركا حتى حي لا يهرب منيشي وحي شيء فرصة تاسو غير طفر غير تعبان كل يوم في سكتة وحنا بدينا أبوات تصير نغيران دولا شعب سيدا نوشي ستيل مغالبي نبيانا عاوق في جفان arrin yara aada ugu qasbay oo buugga ku saabsan aa jirto buuggan dadkii ugu horreeyey oo arrimihiisa ku daba jooray ahay dadka horey ii garanayay waxaa waaye intiinaan qof iga caankaas ayuu tacbaansanaaman jirin marka shuceebow mar horoo hooshan ila soo bilaabay anigiisi 18kii as baranay saan nafku ku ahane bal aan ku dhisuu dhahay hadda bal caantanimadu waa iga soo bixisay qaybta murqaha wayaana waa insha Allah buuggan marka xaqiiq yar oo ku saabsan oo aan ku qosnaa jirta caawa qof dhalinyaro inta fadhisa ka mid ah wuxuu igu dhahay buuggan haddii la akhristo marka maala yeelana marka waxaa dhihi lahaa buugga wuxuu u baahan yahay inaad ka faa'iidaysataa in aad akhrisataa sida hadal uu sheegay akhrinta xoogaa way yar tahay laakiin wax uun hadda si waxay kugu kordhiyaan kaasatan annaga raggaa isla nahay inaad si gooni wax yar idin kugu sheegan oo aad jeclaystay sida arkaysaan gabdhahan quruxda badan meesha la joogo dee ma u qalmaan nin tacbaan ah iyo nin lugaynar iyo marka buuggan waa wixii idinka caawin lahaa rag adag idinka dhigi lahaa marka insha Allah ka faa'iidaysta khaasatan hal qof oo aad ugu baahan jiro saaxiibkay magaciisa ma sheegay ani ismi leeyahay ma ishaayaan salaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamaa shaahiid ayaa loo maasanta وكم مساعدة وحاجة في دولة Lucy, welcome. قاع لوسي صاحبك لوسي هذا الكون لوسي dadka tartarwa dhammaantii way salaama meesha sharafta ay u tahay inaad dadkii waaweyn u fadhiiso istaagaan kisay sharafta kumaantii أنا قلت بوجا عاوة أفرح بخاطرها. أنا إذا كان أقول خاطرها إن شاء الله مهمة ما شاء الله ما محاولة إن بوجا كذا يصيروا شغال بعدين يجيبوا في وقت الرسالة ديالها وما سنتها. أنا لو كذا أفرح بكذا قف أوبا ودت كلام بقدين أنا أفرح بخاطرها. قف يجوا كرايا وعيد سريع قف يجوا سريع لكن مهمة محاولة إن بوجا هذا لما تيجي سلام.
aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa inoo xigi doona hooyadana waa hanti qof walbo oo hooyadiisu joogto ha ka duceyso ha ilaashado qofkay ilaah ka jeclaadeenna jannada firdowsa la xagiyo hooyo mar walba ayadaa leeyi tahay ti wax kuu mara hawshaada qabo ha ka caajisin hor u soco ayadaa ayaa dhihi jirta la-aanteedna qofka maanta hama noqdeen dhammaanteedna ma noqonin laakiin wax laga dhigto saaxiib waxa ugu wanaagsan waa hooyo iyadaan uga mahad celinaya maanta ole heerka aan taaganahay iyadaana maxaa la jiro qofkaan ayga dhigtay waxaan leeyahay dunidan farxad kuwaa aakhirana janno dhammaan hooyinkeena aad iyo aad u mahadsantihiin hadalka waa idinku deeray baan raali haada thank you so much wixii su-aalaha waa iga furmay aad iyo aad aa mahadsantahay shacab sidaa nala wadaagtay fikradaha ku saabsan buugga iyo more informations waxaana u xigi doona su-aal isweydaarsi oo dhexmari doona maxamed isaaq xasuusi shahdoon shacayb ciidka iyo koko السلام عليكم مرحلة برنامجكان سؤال isweydaarsiga aniga ayaa daafisa in sha Allah waxaan ugu talagalnay su'aalaha dadka qaarkood aan haddi karin in anaga hayna laga yaabaa su'aalaha lagu jiraan soo diyaarinay marka kookana qayb ay ka soo diyaarisay shaadoon dhamay baa su'aalaha marka su'aalahan is weydiin doonaa oo weydiin doonaa waxay tahay qoraaga weyn Shucayb Eidbag waxaan leeyahay soo dhawo Shucayb madasha hadda maanta aan isku jiim tagin sidoo kale iyo dadkii hore sidoo kale si ugu faa'iideynayaan kolley buuggan waxaa ku jirto 9 cisho oo training programku waa 3 bilood oo training program ku qeybay sidoo kale waxaa ku jirto 3 jadwal ee lagu bilaabo trainingka isigana u jira haddii ay noqoto split training ama jilka inaad kala qaybiso oo maalmo isku xigaa training garaysid hadday noqoto abarka dhawaaqa hadday noqoto jilka sare iyo jilka hoose inaad ka training garaysid iyo haddii ay noqoto full body workout hadday noqoto inta waa ku jirtaa marka dadku qofkii bilow ah tusaale fiican uu ka raaci karaa oo buugka akhrisan karo